بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta ay taariikhdu tahay 17 bishii saddexaad 2021 haddii aanu nahay xisbiga cadaaladda dareelka ucid waxaan halkan uga cadeynaa bulshada reer Soomaaliland meel kasta joogaanba inay ku beegneed maanta maalintii ugu dambeysay ee araajida murashaxiinta golayaasha deegaanka ee xisbiga ucid u qabtay ay muxuu ahaa inay u gudbiyaan komishanka doorashooyinka qaranka marka halkan maanta bulshada waxaan kula wadaagaynaa hadaan xisbiga cudnahay degmooyinka doorashooyinka Soomaaliland intii degmaanu xareynay inta musharaxay aan xareynay iyo muxuu ahaayay inay komishanka gudoomeen saaka 8 subaxnimo markay ahayd saacadu xarumaha komishanka doorashooyinka ee heer gobol waxa ku diyaar ahaa komishanka doorashooyinka ee heer gobol iyo heer degmo iyagoo maanta u asteeyeen inay musharaxiinta golayaasha deegaanka saddexda xisbiba ay ka gudoomaan araajida iyo faylasha iyo codsiyada musharaxiinta haddaba haddaan xisbiga u cidnahay gobolka awdal waxaan u gudbinay komishanka doorashooyinka qaranka 12 musharax oo u tartami doona haddii la yiraahdo golayaasha deegaanka oo ka kala sharaxan degmada Boorame 13 musharax degmada Saylac 11 musharax degmada Baki 9 musharax iyo degmada Lughaya oo aan ka sharaxnay 9 musharax oo uga tartami doona xisbiga ucid gobolka awdal degmooyinkiisa kala gedisan golayaasha deegaanka guud ahaan waxay isku noqonayaan degmada gobolka awdal iyo degmooyinka hoos yimaadaba inaanu u sharaxnay 42 musharax oo u tartami doona golayaasha deegaanka 42 ka musharax mid walba waxaanu ku xurnay CV-giisii aqoontiisii iyo shuruudaha xeerku dhigayo ayaan u kala hufnay u kala haadinay oo ilaa iyo 3 bilood ugu dambeysayba mas'uuliyiinta xisbiga heer gobol ay ku mashquulsanaayeen intii final stage soo gaadhay ee la soo kala hufay la soo kala haadiyay baanu saaka komishanka doorashooyinka ee heer gobol u gudbin ee gobolka awdal gobolka Maroodijeex oo ah gobolka ugu balaaran uguna codka badan musharaxiinta ay dadka iska diiwaangeliyeen ay gaarayaan 5 milyan qof oo reer Soomaaliland ah waxay ka kooban yihiin 4 degmo doorasho oo ah degmada Hargeysa oo ah caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo A+ xeerku dhigayo oo 17 musharax aan u gudbinay iyo degmada Gabiley oo 13 musharax oo golaha deegaanka u tartami doona xisbiga ciidana aan u soo gudbinay komishanka degmada Salaxle iyo Bilgobollana min 9 xubnood sidoo xeerku dhigayo aan u gudbinay guud ahaan komishanka gobolka Maroodijeex ee heer gobol waxaanu saaka u gudbinay 48 musharax oo ka tartami doona gobolka Maroodijeex degmooyinkiisa kala gedisan oo runtii gobol balaaran ah oo caasimadii ah oo muxuu ahaay challenge-geedu badnaa oo musharaxiinta aan aad u kala xuleynay siiba 17 Maroodijeex gobolka 17 degmada Hargeysa oo runtii xisbiga ka qaatay waqti dheer inuu kala hufo CV-yadii aqoontii iyo ummadda aan horkeena dad musharaxiinta aan horkeena inaanu dad badan oo aanu runtii CV-yadoodana aanu ku qanciweynay aan reebnay intii xulka ahayd aanu ummadda iyo bulshada reer Soomaaliland soo hordhignayna aanu saaka u gudbinay degmada muxuu ahaay gobolka Maroodijeex ee komishanka doorashooyinka qaranka gobolka Saaxil oo ka kooban degmo doorashada Berbera iyo degmo doorashada Saaxil ee Sheekh isagana waxaan u gudbinay 22 musharax 9 degmada Sheekh ah iyo 13 degmada Berbera ah oo runtii ah xulkii iyo haldoorkii gobolka Saaxil oo aan ugu soo xulnay oo nahay xisbi kaliya ee runtii waqtigii loogu baahnaa u gudbiyay komishanka doorashooyinka gobolka Togdheer waxaan u gudbinay waase uu ka kooban 3 degmo doorasho degmada Burco oo ah magaalada madaxda gobolka Togdheer waxaan u gudbinay 13 musharax oo weynana 12 Buuhoolana 12 guud ahaan wuxuu isku noqonayaa gobolkaasina 35 musharax oo uga tartami doona xisbiga ucid gobolka Togdheer golayaashiisa deegaanka kala gedisan isagana saakan komishanka ku wareejinay oo ay naga aqbaleen oo naga gudoomiyeen gobolka Sool magaalada Malaascaanood iyo degmada Caynabo ayaan iyaduna aan u gudbinay gobolka Sool komishanka
u qaabilsan degmada gobolka Sanaagna Ceerigaabo gar adag ceelaf weyn ayaan runtii idana u kala gudbino oo igu noqonayso 30 musharax guud ahaan markaan isku soo duubno 196 musharax oo ka kooban 18 degmo doorasho oo dalka oo dhan ah oo min bari ilaa galbeed ayaa saaka komishiga doorashooyinku haddaan xisbiga u cidnahay uu naga aqbalay waxaan u rajaynaynaa musharaxiintaas guul baan u rajaynaynaa waa hal doorkii ummadda degmo walow ka sharaxay yahay waxaan u kala eegnay xeerka iyo aqoonta iyo muxuu ahaayay kartida iyo inaan dad ammaano ah oo lagu aamini karo inay yihiin baan u soo kala xulnay anagoo ka faa'iideysana waayagnimada dheer aan u leenahay musharaxiinta kala xulista anagoo ka faa'iideysana waayagnimada xisbiga u cid maadaama yahay xisbiga kali ee 6 doorasho maanta u diyaara inuu markii lixaad u tartamo golay muxuu ahaayay doorashooyinka qaranka ka dhacay Soomaaliland ka dhacaya annagoo u eegna aqoonta iyo musharaxiinta iyo waayagnimada u leenahay hal doorka reer Soomaaliland maanta min bari ilaa galbeed aan ka sharaxnay dadkii hal doorka habaan bulshada u soo bandhignay waxaan bulshada uga baaqayaa xisbiga cid waa xisbi la wada leeyahay maanta 196 ka qof beel ka maqan ma jirto waa lagu wada dhan yahay waa hal doorka ummadda bulshada reer Soomaaliland waxaan u soo jeedinaa iyaguna inay codkooda iyo cududooda u kala xushaan oo dadka amaanada leh aan soo xulnay iyaguna ugu hiiliyaan oo codkooda iyo cududooda ugu hiiliyaan insha Allah billahi kariim صدق bisha waxaanu gudbinaynaa idana 82 golaha wakiilada uga tartami doona xisbiga cid baan u gudbin doonaa komishiga doorashooyinka heer gobol baan u kala gudbin doonaa haddii la yiraahdo ilaa waxaan ka rajaynayaa inay doorashooyinkaasi nabadgelyo ugu dhamaadaan caafimaad qabin u gaarsiiyo ummadana intii ilaahay u qoran baa soo baxaysa inta kalena way la shaqeyn doontaa qaranka oo dhan wada guuleysan doona xisbiyada kale waxaan ku baaqayaa inay iyaguna xanafta doorashada ilaaliyaan oo gacmaha isku qabsanno sidii maanta doorashadaas labada doorasho isku sidkan aynu dalkeena si nabadgelyo oo wanaagsan oo midnimo ah oo wada jiran ka wada shaqeyno inaynu gacmaha isku qabsanno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadana iyaguna waxaan ku baaqaynaa inay ilaaliyaan oo dhex ka noqdaan musharaxiinta tartamisa iyo xisbiyada tartamisa komishinkana waxaan ugu bogaadeenaa in iyaguna hawshooda ilaahay u fudaydiyo halkay soo gaarsiinayaan oo ku bogaadeenaa inta ka harsanna waxaan rajaynayaa in ilaahay iyaguna si nabadgelyo nagu dhamaato shacbiga reer Soomaaliland wax leenahay maanta wax la kala dooranayaa waa ilmaadeerayaal is-eryanaya xisbiga maaha oo xisbiyada ku kala tartamaya idukuna coddiina codkina u kala hiiliya cunfi ma jiro xumaan ma jirto oo wax noo kala dhaxeeya ma jirto reer Soomaaliland oo dhan baa wada tartamaya oo u tartamaya inaynu xil u dhiibano oo amaano u dhiibano oo inoo shaqeeyaan iyagana waxaan u rajaynayaa shacbigana guul u kala doorta musharaxiinta amaanadeeda cid ku kala aaminaysaan anaguna xisbiga cid hadaan nahay maanta waajib weyn boo dastuuriyana naga ayaan runtii gudanay oo ah inaan ummadda horkeena dad ku tartami lahaa codka siin lahaa intii ka shaqeysay xisbiga cid ee hari habeen u helaneed ee xalay iyo ilaa habeen hore ilaa bilahan ugu dambeysay habeen walba shaqeynayay ee maamulada gobolada degmooyinka ka tirsan ee mas'uuliyiinta xisbiga cid dhammaantood oo mahadnaqaynaa min bari ilaa galbeed mas'uuliyiinta ka soo shaqeeyay ee 18 ka degmo doorasho maanta aanu gudbinay ka shaqeynay soo xulay musharaxiintana dhammaantoodba heer kastoo leeyihiin baan u mahadnaqaynaa ilaahay nabadgelyo caafimaad ah inuu gaarsiiyo dad wanaagsan ilaahay noo soo saaro wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh